السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada caruusad bila iyo qurxinta iyo diyaarinta caruusada oo hanka markasta kaga hadalo diyaarinta caruusada arooska ka hor, arooska kadib iyadoo gurigeeda joogta, taas oo ugu baahanahay dhamaantiin dumarku deenahay dumar qurxinta iyo isqurxinta kama maarano. Marka waan u baahanahay fadlan subscribe taawo, like and share, asxaabtaadana gaarsii hablaha ah. Dhamaanteen waan jecelahay waji qurux badan, waji daadiisa ka yar, waji dhalaalaya, waji finan iyo madmadow iyo waxyaabo kala toona aan lahayn. Laakiin sidee baad ku heli kartaa oo waliba si dabiici ah aad wajigaaga u cadeyn kartaa una qurxin kartaa oo kaale arag uga dhigi doontaa. Markaas maanta waxaan idinku talagalay inaan halkan idinku soo gudbino xataa dadka ka cabanaya gabowga iyo ururka oo waxyaabo ka biin kara. Waxaan idin soo gudbinaynaa waxa weeyaan foox cad. Dhamaantiin wada garanaysaan foox cad la cabo weeyaan, waxaad ka helaysaan suuqyada. foox cad la cabo hal doolar waxaas la iibiyaa. foox cad haddaba faa'iidooyinkiisu waa maxay? Okay, number 1 waxa weeyaan wajiga gabowga iyo coorku ka biiya oo jirkii wuxuu sameynayaa jirkii ururay ayuu isku dayay ayuu geejinayaa oo indhaha hoostooda ururkii wixii oo dhan ayuu ka biinayaa. Wuxuu kala sameynayaa dhalaal buu siinayaa wajiga, madmadow buu ka biinayaa. waxyaabihii haddii ka cabanaysa finan ay kaaga tageen hadh ama haar oo kale aad lahayd wuu ka biinayaa. wuxuu kaloo suuro gelinayaa inaan wajigu aanay ka dhamaanin fitamiinadii loogu talagalay wajiga, oon wajigu noqon waji soo dhacdhacay, yani waji gabowgabow kale ka muuqdo. oo waxa kale haddii nabar kugu yaalo oo kale ama nabaro yaryar leedahay degdeg ayay nabaradaas kaaga baaba'ayaan oo wuxuu kordhinayaa bogsiintooda. loo wajigaagu qaleyl iyo wax ka cabanaysidna qaleylka oo dhan ayuu ka biinayaa oo wuxuu ku siinayaa duxdii aad u baahnayd buu ku siinayaa. waxa kale uu sameynayaa dry skin ku qaadaya jirka dhintay ayuu qaadayaa. wuxuu kala sameynayaa wajigaaga daloolada wajiga ayuu nadiifinayaa oo gunta ayuu ka nadiifinayaa. cadceed badan hadday kugu dhacdo wajigaaga cascasaan iyo hadh oo lahaa uu ka biinayaa. wuxuu kala sameynayaa qofkii dalool lahaa daloolkii ka biinayaa. qofkii finan yani hadhkii ama dhibcihii kaga tageen finanku iyaga qudhada uu ka biinayaa. wuxuu kala sameynayaa wajiga kaliya maaha, timahana wuxuu leeyahay daawooyin fara badan oo ka mid tahay hadda toxob leedahay toxobtii buu ka biinayaa. timahoo kale dhalaal buu siinayaa. wuxuu siinayaa timahaaga udgoon qaracad iyo siinayaa. timahana wuxuu ka dhigayaa timo yani timo adag oo timo maaha adag timo yani aan ahayn timo yaroo daciif oo markiiba soo go'ayaan ahayn. ma fahantay? waxaan waliba idinka ilaabay udgoonku maaha timo kaliya, timo jirkaaga markaad marsatid ama wajigaaga aad marsatid waxaad dareemaysaa udgoon yaroo udgoon inuu ku siinayo markiiba. wakaas siinaya cadaan, yani markaad muddo isticmaasho wajiga waxaa arkaysaa nuur badan oo ka baxaya, cadaan badan oo ka baxaya oo qurux badnaanayo. haddaba aan sheegno qaababka loo isticmaalo. haddii eegno qaababka loo isticmaalayo wada koowaad waxaad soo qaadaysaa in yar oo ka tirsan lubaano dekerka amaba fooxa cad. waxaad ku ridaysaa bakeeri yar, waxaad ku daraysaa biyo kulul oo karayaad ku daraysaa. biyaha kulul markaad ku darto waad ku daboolaysaa. marka ku daboosho waxaad deynaysaa habeen dhan ayuu ahaanayaa. habeen dhan markuu sidaa ahaado maalinta ku xigta waxaad arkaysaa isagoo noqday caano. kadibna waxaad sameynaysaa talaagadaad iska gashanaysaa ama meelahaasaad iska dhigan karaysaa. talaagadaad gashatana muddo badan ayuu ku haynayaa. waxaad sameynaysaa markasta wajigaagaad marsanaysaa oo markasta. dariiqada labaad ee aad sameyn kartaa waxa weeyaan intaad soo qaado lubaano dekerka oo markaad raadisay kadib biyihiisa dabka yara saarto ayaa waxaad ku daraysaa malqacad yar oo nasha waxaad ka helaysaa asli oo kale waad ka helaysaa. markaad ku darto waad isku walaaqaysaa. markay isku yara fadhiistaan caagad yar ayaad ku shubanaysaa. kadibna caagad yar markaad ku shubatid waad marsanaysaa, yani anytime talaagada xataa ku ridan kartaa. waxa weeyaan qata saddexaad waxa weeyaan
intaad waxaad ku radinaysaa maa-uward biyaha intaad ku ridid weel yar sidaas markaad sawir ku aragtaan oo kale ayaad ku radinaysaa maa-uwardi baad ku radinaysaa. maa-uwardi markaad ku radiso uu rado uu caano oo kale noqdo ayaa waxaad sameynaysaa wejigaaga ayaad marsanaysaa. intaad weel yar ku shubato ayaad marsanaysaa markasta wejigaaga. jidhka waad marin kartaa xataa marka caagada yar baad ku shuban kartaa, sida kareem ahaan baad u isticmaali kartaa. haddaad doonto waxyaabo kale ood isku qooshatay ood ku dhex darsan kartaa. jidhka waad marin kartaa oo maxay udgoon buu siinaya jidhkaaga kale markaad meedhatid marisid jidhkaaga udgoon baad arkaysaa. marka insha Allah waxaan jeclahay inaad ka faa'iidaysateen ood ka faa'iidi doontaan. marka run ahaantii aniga waa iga talo fiican, anu waan isticmaalaa, walaalahay baa tihiin idinkan idin faa'iideeyaan jeclaaday. insha Allah inaad ka faa'iidaystaan oo maasha Allah idinka qurux badan aad joogtaan baan jeclahay. kuwa aroosada kuwan aroosada ahayn dumar oo dhan waynu u baahannahay isqurxinta si dabiici gurigaaga aad isku qurxinaysaa. waad mahadsantihiin dhammaantiinba. fadlan channelka caruusada oo ugu talagalay qurxinta caruusada, diyaarinta, hagaajinteeda ay hatta cuntooyinka soo dhigayna insha Allah sida loo sameynayo dhinac walba idinka diyaarinaa. marka fadlan subscribe, like and share asxaabtaada la wadaago. mahadsantihiin dhammaantiinba.